sheekadan waxay ku dhacday xilli aan ka shaqaynayay meel maktabad ah. Maktabadaas ayaan waxaynu wada lahayn aniga wiil aan saaxiibo ahayn. Waxaa liigu gaaray sida aan u shaqaynayay waqti dambe. Waan soo baxay oo meeshu idil waan ka soo tagay. Kadibna cabaar markaan wadada socday ayaan waxaan arkay in hareerahayga idil ay dadna aysan joogin. kadibna aad iyo aad baan u cabsaday. xoogaa baqdin yar ayaa gashay. waxay ahayd xilli 11 saac bar ee galabnimo ah. isla markiiba waxaan arkay in meesha daaqada gurigeena in daaqada nalku u daaran yahay. aad iyo aad baan u baqay cidnama aan ku ogin inay guriga joogto. kadibna si dhaqsi leh waxaan ku arkay gaari oo aad baan ula yaabay. laakiin markaas wadada ayaa marayay. anigoo yaaban ayaan waxa u sii jeestay dhanka guriga. waxaan ka yaabanaa cid nalka daartay. kadibna waan fidhacay. baqdina way soo gashay. albaabka ayaan garaacay. cidna ma aysan joogin. kadibna waxaan dareemay in albaabka la furay uuna furnaa. anigu waxaan ku ogaa markii ugu dambaysay in albaabka aan xiray. laakiin waxaan arkay mar sikadiis maamo xijaab xidhan. aad iyo aad baan ugu naxay. waxayna wadatay buug iyo tusbax iyo qalin. anigoo idil waan yaabay. mana ku ogeyn. kadibna waxay igu tiri, waxaad tahay qof guriga joogay ma garat. gurigan anaga ayaa rabno. weliba waxaan rabnaa in aan ku soo degno anaga oo fara badan. waxaa kuu roon in guriga gabi ahaan isaga baxdid. markaan waad i aragtay. waxaa laga yaabaa inaad sii noolaa weydo. waxaan kugu dilaynaa gaari. weliba gaari ayaan kugu jeersiinayna. aniga ciddaan la kulmo ma fakato. hadda isaga bax. guriga oo dhan isaga bax. anigoo yaaban ayaan guriga gabi ahaan isaga soo baxay. waxaan iska taxadiray in gaarigu uusan i jirin. laakiin dhaqsaba gaari ayaa igu dhacay. waxaan u malaynayaa in ay shirqool ahayd. sidii ayaa mirkii oo dhan iga daboolmay.